Albania oo ka soo horjeedsatay mudaharaadkii ugu xooganaada ka wado caasimadaheeda iyo waliba sidoo kale magaalooyinka xeebaha ah ka wado meelaha banaanbaxyadii ugu weynaa caalamka ee abid la arko population intaas leeg iskugu soo baxo kadib markii gabadha Donald Trump Ivanka ay ku dhawaaqday in resort ama macnaha sheegay massive complex ama dhismo weyn macnaha jasiirad virgin ah oo jasiiradii Epstein lamid ah in ay ka dhisanayaan ayada iyo ninkeeda macnaha sheegay dhismahana uu bilaaban doono dhawaan ay interview ka sheegtay gabadha Donald Trump oo dhalay ayada iyo waliba ninkeeda sidoo kale asalkiisa Yahuudka ayada laftirkeeda ay convert gareysay oo Yahuudda ah Ivanka Trump lagu magacaabo ayaa waxay shaacisay ama podcast lagu wareysanahay saacada la soo dhaafay ka sheegtay in ay qorsheenayaan ayadii ninkeeda Jared Kushner in ay ka dhisaan massive resort ama sidoo kale macnaha isheegay goob raaxo iyo waliba sidoo kale guryo noocyadooda aan horey loo arag balaayin doorka Mareykanka ay ku baxayso ayay sheegtay in ay ka dhisanayaan halkaasi oo sidoo kale macnaha isheegay guryo raaxo familka Trump sidoo kale uu ku lug yeeranayo gabadhiisa maadaama ay tahay sodogiisi uu yahay Jared Kushner waxaan sidoo kale ognahay bariga dhexe iyo waliba sidoo kale negotiationadii socday Iran waxyaabaha macnaha isheegay sidoo kale waaweyn oo lagu dhaxqarinayo inuu ahaa company familka Donald Trump uu leeyahay Jared Kushner uu xukumo ninka Ivanka qabo oo sidoo kale sodoga Donald Trump uu yahay ayna sidoo kale business family meeshaas lagu kobcinayo bariga dhexe uu ka agdhawaanahay resortkaas laga dhisahay wadanka Albania maadaama hadda macnaha massive protests ama banaanbaxyadii ugu waaweynaa ee ka socdaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Albania sidoo kale waxaan ognahay dalkaasi populationkiisa inta badan in ay yihiin muslimiin waxa ku soo xigay Christian iyo waliba sidoo kale minority oo non religious ama atheists ah guud ahaanna wadanka waa wadan Albania ama secular ah waxa yaab iyo ama kaag ah sidoo kale markii labaad weeye oo familka Donald Trump dhismo noocan ah ama dabaq ama business kooda wax ku aadan sidoo kale inay ka dhistaan wadanka dibadiisa ee sidoo kale dhulka la simo ama lagu adkeeyo ama sidoo kale dadka shacabka ahaa ee ka soo horjeedsadaan ugu dambeynna la laalo ama la burburiyo oo dhulka lagu daro waxaan ogeyn Australia in ay cancel gareysay ninka lagu magacaabo sidoo kale Donald Trump Jr oo businessyada Donald Trump ee sidoo kale overseas-ka ama wadamada dibadda asaga gacanta ku haya ama xukumo in waxaan ogeyn Australia oo macnaha isheegay ka codsaday sidoo kalena uu soo bandhigay qorshaha Donald Trump uu businesskiisa ku balaarinayo wadankaas Australia in magaalo xeebeed Australia kamid ah in sidoo kale macnaha isheegay East Coast in uu macnaha ka dhiso doono dabaq massive ah oo dabaqyada ama bildinada Donald Trump kamidka ah in uu sidoo kale ka dhisi doono waxaan ogeyn Australia inay dhulka ku dartay iska daa xataa maxkamad iyo dad shacab ah in ay gaarto ama ay ka banaan baxaan ninkii loo soo qorsheeyay ama qorshahan macnaha isheegay loo soo bandhigay la rabay inuu dhiso architect-ga ahaa ama designer-kii asaga la rabay inuu design gareeyo ayaa diiday asaga oo sidoo kale ku baaqay ama dadkiisa Australiaanka ugu baaqay in uu macnaha magacan Donald Trump uu yahay magac toxic ah ana macnaha isheegay laga ogolaan karin wadanka Australia sidoo kale maadaama uu Donald Trump Europe oo dhan xariga u jiray Australiana ay kamid tahay Europe oo sidoo kale ay hoos imaatay Ingiriiska si dadban inkastoo independent ay tahay balse boqorka Ingiriiska uu boqor u yahay sidoo kale sidaas si lamid ah ee ugu hoos imaadaan marka waxa muuqato familka Donald Trump kaliya inaan laga nacin gudaha Mareykanka balse wadamadii caalamka inay hadda ku baraarugayaan in familkan uu yahay wasakh aana macnaha la soo dhaweysanin Australia inay diiday Albania hadda ay diidan tahay in resortkaas laga dhiso island-kan ama macnaha jasiiradan wadankaasi leeyahay ee virgin-ka ah weligeed aana cidi degin macnaha isheegay weligeed degin la degin in ay rabaan in ay Donald Trump gabadhiisa Ivanka iyo waliba sidoo kale ninka uu sodog u yahay Jared Kushner uu qorsheenahay arintan ayaa sidoo kale waxa soo baxayso qorshahan inuu qorshe qoto dheer yahay oo mar hore uu soo bilowday oo sababtu tahay Jared Kushner waxa ognahay arrimaha bariga dhexe inuu san ka dhamaan sidoo kale Donald Trump uu ku hoos qarinahay qaab siyaasadeysanna uu ugu soo macnaha magacaabay in uu negotiation-ka ama wada hadallada Iran iyo asaga dhaxmarayo Mareykanka macnaha maadaama Mareykanka dagaalkan illegal-ka uu ku qaaday Iran-na ay tahay waxeeda iska caabin iyo iska celin aan ognahay sidoo kale Donald Trump ayaa uu u diray dhowr jeer asaga iyo waliba sidoo kale xoghayihiisa macnaha isheegay ergigiisa gaarka ah ee lagu magacaabo Steve Witkoff
uu u diray bariga dhexe marka siyaabahan ayaa sidoo kale hoos imaanaya siyaabaha Mareykanka uu bariga dhexe ka damacsanaa dagaalka in ay tahay kaliya ku hoos qaris iyo waxyaabo noocaas sidoo kale balaayin door uu dagaalka familka Donald Trump si qaas ah uga faa'iiday dagaalkan bariga dhexe ka socdo in sidoo kale macnaha family enrichment ay sameysteen shirkad hubka macnaha noocyadiisa kala duwan sida daroonada Iran loo isticmaalayo Iran daroonada laga koobi gareeyo daroonada shahiid in macnaha sidoo kale against loo isticmaalo oo company Donald Trump uu wiilka sodoga uu yahay Jared Kushner uu maamulayo uu bariga dhexe iyo waliba sidoo kale Mareykanka ka asaasay businessyo xoogan in uu Mareykanka ku leeyahay bariga dhexe in uu sidoo kale xidid ku yeeshay uu rabo presidency-giisa ama joogista Mareykanka inuu xoojiyo xitaa hadii madaxweynenimada laga qaado Donald Trump ama uu retire gareeyo uu rabo inuu influence kaas uu weligiis ku yeesho sababtuna ay tahay sababta uu aas-aasay sidoo kale qolooyinkan asaga uu iskugu yeeray ama wadamadan oo macnaha ii sheegay uu iskugu yeeray 22 ahaa ayaan dhaweyd sidoo kale dhowr bilood ka hor inta uusan dagaalkan bilaaban Iran oo macnaha ii sheegay ilaa iyo 20 wadan oo wadamada Carabta ay u badan yihiin oo sidoo kale union uu sameeyay oo uu uga hortagay sidoo kalena sababta uu u dayacay NATO uu arkay inay asaga familkiisa wax faa'iido ah isla ugu fadhin NATO oo ay Mareykanka interestigiisa ka shaqeeyaan iyo interestiga Europe iyo isdhaxgalka noocaas uusan asaga ka helin uu rabo kaliya wax familkiisa khuseeyo wax asaga faa'iido uu ka helayo wax asaga uu ku lug leeyahay wax asaga macnaha isha sidoo kale uu ku sareeyo ama gacan sareeyta uu asaga leeyahay oo in badan Donald Trump uu raadinahay marka waxa rabaa in ay idin la wadaago sidoo kale macnaha isha mudaharaadyada xoogan ee wadankaas Albania ka socdo sida ay uga soo horjeedaan dadka shucuurtooda ay u muujinayaan demonstrationadan ilaa iyo boqolaalka kun ee dad iskugu soo baxeen caalamkii oo Donald Trump ka soo horjeedsaday macnaha kaliya ma aha dadka Ameerikaanka iyo waxyaabo noocaas iyo ma aha populationka sidoo kale qolinka Republicanka inay ka soo horjeedsadeen Donald Trump labada aqal in ay codadkooda ku biirinayaan qolinka dimuqraadiyiinta si ajendayaasha qaar dagaalka Iran haday noqoto safe act oo dadka doorashada in la kontrolo cidda doorashada ka qayb qaadanayso sidoo kale macnaha ay sheegay sharciyo adag la kor saaro si aysan dadka intooda badan u codeynin oo Donald Trump loo impeach gareenin uu u dagaalamahay ilaa iyo hadda si uusan macnaha ay sheegay xabsi u gelin balse laba gooraba uu xabsi geli doono bal wax yar muuqaalkan ay idin la wadaago dadka Albaniaanka dareenkooda sida ay u muujiyeen iyo waliba sida ay wax u dhaceen Anti-Trump protests are exploding this evening in Albania. This is what the streets looks like right now. Hundreds of thousands of people are taking to the streets to protest Ivanka Trump and Jared Kushner, the Trump family, as they look to build a massive resort complex on protected land in Albania. The people of Albania do not want the Trump family building, and they have taken to the streets in droves. This wasn't a coordinated protest by any means. This started out as just people angry, and it's now exploded to hundreds of thousands of residents, literally almost every day, taking to the streets and making their voices heard. The Trump brand is so unpopular right now across the world that this is what it looks like anytime a Trump family member tries to build any property anywhere. Spread the word. Mareykanka macnaha ay sheegay wuu ceebeeyay asaga familkiisi wuxuu wanted ka noqday caalamka oo dhan wadan kasta oo uu isku dayo xitaa asaga oo aanan wajigiisa iyo magaciisa adeegsanaynin inuu influence ku yeesho uu rabo in uu sidoo kale halkaasi uu dego uu saldhig ku yeesho oo macnaha ay sheegay kala socdo dhaqdhaqaaqyada wadamada bariga dhexe inuu rabo inuu soo dhaxgalo sidoo kale Albania oo kamid ah bariga dhexe macnaha ay sheegay aagaasi u dhow Mediterranean-ka uu rabo in uu saameyn ku yeesho ayaa macnaha wax walba oo Donald Trump ku saabsan wadamadii caalamka ayaa wada boycotting ku sameynaya xitaa magaciisa asagoo isticmaalin waxa weeye Australia sababtay u kansashay inay dhaheen magaciisa waa toxic haddana waa isla familkiisi wajigooda asagoo isticmaalaya ayuu rabaa resort kan in uu hirgalo oo macnaha ay sheegay sidoo kale laga dhiso goobtaas ama jasiiradaas ku taalo wadankan Albania inta badanna dadka ku nool wadankaasi ay muslimiin yihiin ay si baan sidoo kale uga soo horjeestay wuxuu rabaa meel kasta in uu faraha la galo asaga oo sidoo kale shuur u hayo ama og in uu siyaasadda Mareykanka iska daayay xitaa caalamka uu macnaha isheeg wax saameyn ku yeelin doono xabsina uu ku dambeyn doono asaga iyo waliba cid kasta oo hadda kala shaqeynayso marka wuxuu rabaa saameyn inteeda la eg macnaha in uu ka tago
si loo hadal hayo waxyaabaha noocaas oo dhan in uu toxic macnaha isheegay sidoo kale adduunka oo dhan ku noqday maadaama uu ogaaday uu desperate u yahay wax kasta oo uu sameeyana ay sidan u halaaba hayaan haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro fikirkaada la wadaag muuqaalka like noo sar haddii aan ugu cusub tahay ugu soo biir waana mahadsantahay